waxaasoo dhan isku soo duuduub haddaad ilaahay rumayso oo rasuulkiisii muxameda calayhi salaatu wasalaam rumaysid oo aad garatid dunida waxaad u joogto oo aad garatid meesha aad ku socoto aakhiro inay dambayso janniya naar inay jiraan siraad in dadku wada mari doono xisaab iyo ciqaabe inay jirto 50,000 sannadood in meeshaa la taagnaan doono bini aadamku dheeldheelkaba uu iska dayn lahaa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay waxaan ogahay haddaa og tihiin in badan baa ooyi lahaydeen in yarna waa qosli lahaydeen buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam haddii caqiidadeennu ay sii dunto oo badiilku uu noqdo weliba da'yartaan sheegaya da'yartu bahalkan ay galeen iyagoo madhan bay galeen dabeetana dad madhan bay la kulmeen qofku hadduu caqaa'iddiisa iyo diintiisu dhisantay ma lumo hadduu dhisan yahay ma lumo waayo wuxuu rumaysan yahay inuu isagu rabu samaawaat wuxuu sheegay hayo saxaabadii nebi maxamed falsafad may aqoon oo cilmi maadiya may aqoon oo saxaaraha carbeed bay ku koreen laakiin waxay caqiidaysteen inay sidaan rabu samaawaati walardi kelmadiisii sidaa ogeed bay aadanaha inta kale waxay u arkayeen dad u baahan gacan qabasho ay gacan qabtaan ama filosof ha ahaado ama boqor ha ahaado ama mid waxasta ha ahaadee waxay u arkayeen dad lunsan dad indhala oo cid usha u qabata u baahan walidalik baanay iyagu lumin ay caqiida dhabay haysteen materialku qiimo agtooda kama ahayn dadka hadday adduunku agtaada uu ku weynaado kuwa qiimaha beelay baad ku biiraysa adduun waxay ka joogeen rabciy ibni caamir baa waxaa la yidhaahdaa markii ay beershiya furteen imaam abulxasan الnadawi baa wuxuu soo naqlinayaa beershiya markii la furtay gurigii boqortooyada ee madaa'in markii la galay cunadii loogu tegay waxaa ka mid ahayd kimis si yaro khafiifa loo sameeyey dabeetana qoladani dee waa kii saxaabadu caaisha markii la weydiinayay la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam daqiiqdan la hufay ma cunay maba arag shaandhadaba maanaan arag bay tiri tan lagu sameeyo ee lagu kala shaandheeyaba maanaan aqoon bay tilmaamaysay markay meesha tageen manaadiil bay moodeen wixii faraha la iska marinayay moodeen waana cuno mis bay isku dayayaan buu leeyahay waa abulxasan الnadawi ninka soo naqlinaya nimanka quuska meesha saaran moodaya mindiil faraha la iska mariya ayaa haddana dawladdii dunida ugu xoogga badnayd carshigeedii dul fadhiya oo qabsanayay waayo ilaahay bay rumaysnaayeen ilaahay markay dhab u rumeeyeenna nolosha adduunna wuu ugu gargaaray aakhirana wuu ugu gargaari doonaa laakiin warkiisa kaad ilaahay dhaafsiisanaysaa taa haddaad ilaahay dhaafsiisato aakhiriya adduunba waad cidhib beelaysaa tafaahada rasmigaana waad ku dhacaysaa inaad qashin noqotaan tabac u ah mid qashina isaguna waxaan jeclahay inaan iska soo koobo maxaan ku koobaya